السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبان إذن سلامي صاحبتك حرن درليبان أكاديمي. 10 كوحو نقون دونا dialogue between family وهذا هذا الأضحى يا قويس part 1 قيبتي سيكوات. فالله ندي أي تاي مركا يكون رسي أصاب وقت جنالك سارو سبسكرايب si aynan kuu sheegin casharadaan halkan soo gelino. haddii ayna la joogtayna waad ku mahadsan tahay la joogistaada. mahadsanid. dialogue between family wada hadal u dhexeeya qoys. father aabihii ayaa sheekada bilaabay. Aisha Haria, Aisha soo dhaqso. We have been waiting for you for a while. waxaan ku sugaynay muddo. Aisha Haria, Aisha soo dhaqso. We have been waiting for you for a while. waxaan ku sugaynay muddo. Aisha, yes father. Haye abo. Yes father. Haye abo. Father, greet our visitors. Salam dadka ina soo booqday. Mr. Umar and our neighbor Mr. Ali and your mother iyo hooyada. Great salam. Our visitors dadka ina soo booqday. Mr. Umar salam and our neighbor Mr. Ali and your mother iyo hooyada. Intaba salam. Aisha, I salute you all. Dhammaan waan idin salaamay. I salute you all. Dhammaan waan idin salaamay. Father, your mother and I, hooyada iyo anigaba, have found, waxaan ku helnay, a wise man, nin caaqil ah, for you to marry aan kuu guurino. And as you are aware, sida aad ka warqabtidna, girls habluhu are not expected, lagama filayo, to waste in ay ku lumiyaan all their youth, dhallinyarnimadooda oo dhan in school, inay school ku lumiyaan. Your mother and I, hooyada iyo anigaba, have found, waxaan kuu helnay, a wise man, nin caaqil ah, for you to marry aan kuu guurino. And as you are aware, sida aad ka warqabtidna, girls habluhu are not expected, lagama filayo, to waste in ay ku lumiyaan all their youth, dhallinyaranimadooda oo dhan in school, inay schoolka ku lumiyaan. Aisha, why father? Sabab aabe. I am busy, anigu waxaan ku mashquulsanahay preparing diyaarinta for my exams ee imtixaanaadkayga. Why father? Sabab aabe. I am busy, anigu waxaan ku mashquulsanahay preparing diyaarinta for my exams ee imtixaanaadkayga. Father, forget about that. taasi iska ilow. It's not important now. hadda muhiim ma aha. Mr. Umar here. Mr. Umar halkan ayuu joogaa. As you can see, sida aad arkaysaba, is a great friend of mine. waa saaxiib ugu weyn. You are very lucky girl. adigu waxaa tahay gabar aad u nasiib badan, to have been choosing inuu kaa soo doorto among all the girls in the village, gabdha xaafadda oo dhan inuu kaa doorto. Forget about that. iska ilow midaasi. It's not important now. hadda muhiim ma aha. Mr. Umar here. Mr. Umar halkan ayuu joogaa. As you can see, sidaad arkaysaba, is a great friend of mine. waa saaxiib ugu weyn. You are very lucky girl. waxaa tahay gabar aad u nasiib badan, to have been choosing inuu kaa doorto
among all the guys in the village gabdhaha xaafada oo dhan. waa mahadsantiina khayray. assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. casharkii qeybtiisii xigtay aynoo balanna hadduu alla idmo. Goodbye.